روح من النور في جسمي فلست أنظره إلا على قدري سادة الكرام ومشايخ العظام intaan oo ah wujuhdii ahl sunna wal jamaa qaadadii saadadii hormuudkii ahl sunna culamadii aalibeedkii sharaaftii maadaama gawashii aan fidinay culamadiina aan u yeernay culamada makiina oo dhan yeeritaanka culamada loo yeeray in ujeedadii shirka la isugu yeeray mowduuca uu ku saabsan yahay waxaan rabnay inaan ka hadlo in aan bayaaniyo darteed yaan ugu hormaray hadalka iyo insha Allah guddiga farsamada oo sidaas u soo qorsheeyay bacda iraadati Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wa qudratihi marka mowduucan shirkan aan isugu yeernay waxa weeye shir arrimo soo darsay oo degdeg ah oo diinta qoseeya diinta ku shaqo leh diinta dhaawacay dhibaato u geysanaya in marka culimadii ay iska aragto go'aan iyo mowqif midaysan ay ka qaataan maadaama ay yihiin mas'uulkii diinta maadaama ay yihiin dadka Ilaahay maalinta qiyaamada subhanahu wa ta'ala uu diintiisa wax ka weydiin doono iyo ummadii qarnigoodii zamankoodii casrigoodii mas'uuliyadii diinta kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati sidii nabiga u dhahay alayhi salatu wasalaam qof walba waxba la raaciyay waa mid wax la raaciyay wixii la raaciyay waa la su'aali doona maalinta qiyaamada shaqada culimada waxa laga dhigay diinta inay bartaan dadka baraan tarbiyadii akhlaaqdii faafiyaan diinta Ilaahay ay difaacaan noolayaan ayadoo ummadana waajib ka saaran yahay hadana si khaas ah ya ahlu cilmiga iyo ahlu macrifada waajib way si saaran waa mid anbiyada ka dhaxlan al ulama warathatu anbiya marka anbiyada oo joogta hadii ay diinta baadil iyo bidaac iyo wax fidna ku soo daahirto ayaga uu istaaga jiray hadii lisaan ay ku xalinayaan hadii xujo ay ku xaliyaan hadii mucjizo ay ku xaliyaan oo Ilaahay ku ayido iyo hadii saafi jihad ay ka farsameyso lagu xaliyo oo intaas oo nabi anbiya Ilaahay kamid diinta loo dilay oo dhinta u shahiiday rasuulkii khayru khalqillah alayhi salatu wasalaam ayaa loo dhaawacay oo loo dakhray oo ilgiis loo jabiyay diinta darteed sallallahu wasalaamu alayhi arinta marka arin weyn oo culus sida hadda loo arkay oo loo fuudeysanayo iyo sida u weyn tahay islahayn ay kala duwan tahay arin aad u khatar badan ajaa'ib leh yaa soo darastay waxa soo baxay fikirkii khawaarijta ee khatarta ahaa ee banaanka naga taagna ee ismuujinaya fikir ka khatar badan oo isqarinaya yaa soo baxay wuu soo jiri kun iyo 400 sano laakiin hadda ayuu olole soo qaaday olole xoog ayuu soo qaaday masar jaamacatu azhar way soo tagtay muftiga caamka shaacir jumca mufti jamhuuriya sheekh ahmed dayib oo ra'iisul jaamacatu azhar ah shir weyn bay qabtaan dhowr bari aan loo kala kacaynin culimada sheekh baa hadla inta kale fadhiyaan shiicada umada looga digayo masar farako lagu dhigaan suudaan waxay gaartay madaxweynihii inuu amar bixiyo dhowr madrasada hal xiro markii la ogaaday shiicadii oo madrasa furtay masaajid furtay oo la ogeyn oo qarash bixinaysa markii la ogaaday amar lagu bixiyo in la joojiyo Suudaan sidaas oo kale markan Iraq waa la soconaa inay milkisay oo ma artay Mareykanka uu dhiibtay waa la soconaa Iran hadda waa meesha dacwada laga wada saldhigeeda ayada waay dhinaca Lubnaan iyo saas oo kale la garanaya awood ay ku leeyihiin marka Sacuudiga hadda gobol ayaa shiica ahaa hadda shacabkii askarta Sacuudiga shiica laga dhigay oo la kulanay askartii shiica laga dhigay magaalada Madiina ay boosas badan ka gateen raatib ku leeyahay annaga soconaa la kulanay baabuur malaka samaxta raatibka shiica soo iimaana waali sida marka Soomaaliya xamar Machad al-Khumeini baa laga furay yiri waxa noo sheegay culimadii $3,000 in la siinayo qofkii hal qof soo shiicayo $3,000 in la siinayo safaaradda Iran iyo Machad al-Khumeini ay bixinayaan qofkii 10 qof kaana baabuur loo gadaayo diiwaan gelinayo mushahar la siinayo bilkas gaar loo gadaayo dacwad ku kaalmaysto faasidka marka safaaradda Iran baa yaa dacwad u qumay safaarad kasta oo Iran meesha joogta hadda waxay isu bedeshaa yiri in dacwad shiica faafiso waxaa loo sheegay in isticmaalaan khiyaanadaha waxa la yiraahdo tuqyaldaha macna tuqyal waxay leeyihiin been baad sheegaysaa waad inkaraysaa mabda'aaga shiiciga ah markii uu soo wajaho dadka qaadan karana ama caamada ahna ama culimada aad markaas galin kartana waad ku wadaysaa hadii xoogaa soo hujuumo ama in fadax ka cabsana dacwadii aafeenaysa waa rugni arkaanta shiicada kamid ah in la xeelaysto been la sheego la isqariyo waxa lagu dhaartay inaad shiica ahayn kitaab aad marto marka dhibkaas soo baxay waxa hadda ku jirto YouTube internet ku jirto dad loo laqinayo inay hadda islaamaan oo shiicada u laqinayso waxaan arkaynaa nin Soomaali ah culimada oo shiicada loo laqinayo islaamka xaqiiqada soo gal haye waxaan dhahaa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu la shabiha lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu annahu khayru khalqillah la ayba fihi wa ashhadu anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisha al-kha'ina wa Hafsa fi an-nar markaas soo gala tawxiidka shiicada markaas la galaa سبحانك هذا بهتان عظيم ساسا لو غلا مبدأ marka
shiicada marka yaa aad ziyaadada maliyadii Soomaaliya kamida way shiicooday muddo had sanad laga joogo Kenya awal ku socotay oo Soomaaliya maraakiis laamaxta laga dhisay la soconaa awlaadii mashaayikhda waaweyned Xabib Saalax inay u dhisaan markasyo iyo jaamacado iskuul dhisaan oo ay shiicada Kenya ka socoto Mareykan bay soo mareysay oo laga faatax xasan laga xirxirnay Soomaaliya hore u gashay laakiin hadda Soomaaliya iyo kalinka shanaad ayaa hadda aad u daran ay ka wadaan marka arrin aad u khatar badan عجائب له يا سودرستي إن مركا جوجل أنفذ إنه علماء سوء ماذا دينتي حنون كذا يكربل إذا أيان وكلفتي أنا علماء أقل عاملنا أنها علماء على دب كان باجرة قار علماء مقلان قار كربان سيده هستين علماء أنت لافس كورة يسني مكان سامري كربان سنة دور هبين هردوا على سعوان أفر مشتغل أنا مسحنا كربان درتي هو المقالة كربو جوني ولا لا بيه مركا كربادي وحقبت برت الودر ضد عقيدة لها بانهاي ضد دين لها بانهاي ضد أئمة لها بانهاي إلا أصحاب رسول الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضد منهج لانهاي منهج وحقسن أول بالنا إله النسي محدثين حفاظي أئمة دي أفرتي إمام وحي كقبان إن أن بحثنا أو مركز موقف كقبان أنا أن كاستاجنه سي وضع أورد الدين كل أن يستاجنه أو مركز هؤلاء كسي جنة هنا أن أوقع عنه مركز برنامج شيعة لقد دفاع تشيع إدب كبار سعادة إن شاء الله تعالى علماء قفل بفكر كيسي أرادي سأن هلنا وحنا كقبان كرنا يهور مرة سمان كرنا أسكتوا عن سمينا هدي خرج تهاي هدي ميديا تهاي هدي تعليمات تهاي هدي بحث تهاي طبعا كدقيقة لو تجرب قفل مركز فكر كقبان نظام سن وكهذا حكاية أدن تهاي إن شاء الله مولانا وقت كان عاد أول علينا ما دام حل مع الشرك وياه موضوع وين إن سد حضر لنا هذا يكون في عناد لكن المولد يا حفلة يا هول بدن باجرته هذا ندب دقنا وحن كعبسنا وبالمولد كده أنا هنو هرين دق جوجين جوجت أمرجنسة ودق هذا وحنا وشيء لما بقول أرض إلا قاضي إيران لو قاضي حمر لما بقول أو جامعة مدرسة لا قاضي إن إيران أي قاضي إيران يجي تهران يجي على صش عينين إن مركا جوجل أنفذ إنه علماء سوء ماذا جوان كقاتان موقف كقاتان أتكت الشتان سلاسة إن شاء الله علماء ويارني سلاسة إن شاء الله يوها قصد كنا علماء كسر ويننا ساس كسر هذا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران
شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.